Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda soo dhawaada waa walaalkiin Faaliyaha Dhadhaab asxaabta waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aalo badan oo commented igu soo weydiinaya walaaladii asxaabta reer Dhadhaab iyo isoo weydiinayeen su'aalahaas waxaa ka mid ahaa kaar 10 sano ka hor dhacay ama 5 sano ka hor dhacay lama furaya walaalayaal kaar 5 sano ku dhacay ka hor iska dhaaf ku 10 sano ka hor ka dhacay iska dhaaf ku 2 bilood ka hor dhacay 2 bilood bis dhacsan oo 2 bilood qof kaar 2 bilood dhacsan waxa laga wadaa 2018kii qofkaas tirkoob uu galay biimis uu galay faraha laga qaaday tirkoob dhan baa la mariyay raashin buu soo qaadanayay suul buu saaray kaalka meesha raashinka suul saar baa jira suul buu saaray waxaas dhan buu sameynayay 2 bilood ugu dambeysay kaarka suul saarin haddaada kaarka suul saarin 2 bilood ugu dambeysay saan ognahay uu ka xirmaya waayo hadda halkii mar la saaray waa 2 bilood halkii mar la saaran waa 2 bilood haddaadan saarin kaarkaaga suul oo 2 mar ay tusto inaad suul saarin kaarka uu ka xirmaya kaarkaas oo waa la xirayaa raashin dam dowladda raashinka manifest lagu soo darayo marka maanta waxaan galay tirkoob anaga tirkoob galay maanta tirkoobka aan galay waxaa socday wiil dhalinyaro kowla ayaa gudaha soo galay oo kaarkiisa 2 bilood bis u xiran yahay 2 bilood bis u xiran kaarkiisa waa la weydiiyay wuxuu dhahay kaarkii ugu xiran yahay 2 bilood uu xiran yahay suul ma saarin laakiin tirkoobka hor waan galay farihi waan galay raashina qaadanay 2 bilood waxaan ku maqnaa u dhahay Kenya ku maqnaa maxaa doonta shaqaan iyo wax baan doonto dhameystaan aaday warqad baan jid ku maray meeshan jiray haddana waa imaado dhahay waxaa la dhahay warqadda jid ku martakeen markay dhacday aan aragno haddii ay 2 bilood ku qoran warqadaas kaarkaaga haddaan ku furayna haddii uu warqad kaarkaaga manifest warqadaas ahayn oo cadeynta ah inaad Nairobi meelaha ay jirto oo dowladda DRA ku fasaxday oo cadeyn aad haysato oo in lagu fasax lagu warqabay kaarkaaga waa lagu furay haddaan cadeyn haysanin waxba ku maqan karno qofku waxa la rabaa haddii uu doodayo taa wuxuu ku doodo inuu helo ninkii uu qayli wuxuu dhahay kaarkii waan baa la furo waa la diin loo furo wuxuu dhahay manifest la bixiyo saa ognahay ba kaarka hadduu furan yahay manifest caadi ah loo soo bixin karaa laakiin kaarka maadaama uu xiran yahay manifestan caadi oo dadka isku xiriiraan looma bixin karo manifest kale waxaa jira berigii 2019kii dadkii faraha Kenya laga bixinayay dadkan walaalaha Kenya oo qaxootiga ku milmeen oo faraha galeen ayaa laga bixinay 2019kii faraha laga bixiyay marka UNHCR waxa la dhahay ninkii mar hore ugu dambeysay kaarka manifest ma wax ma hayo UN waxay sameeyay system manifest qofkii kaarka xiran yahay manifest nooc loo bixiyaa ayaa UN laga sameeyay noocaas ayaa loo bixiyay wiilkii manifest waxa loo bixiyay oo dhuwan oo ku qoran detailkaaga dhan detailkaaga markii la waxa way meesha ka soo gashay qabiilkaagii waxaad baratay waa baha hooyada waxa ku qoran dhan all details sanadka soo gashay markaad kaar goostay wax dhan ku qoran waa macluumaadka hadda ninka kaarka kaarkiis uu furan yahay macluumaadka uu ka qarsoon yahay waxa uu furan meeshan ninka kaarkiis uu furan yahay magacaaga sanadkii iyo household numberka iyo individual numberka bisa meesha ku qoran kaar numberka laakiin kaarkan warqadan kale ayada saaid waxa ku qoran warbixinta dhammaystiran dhan ku qoran tii loo bixiyay kaar in loo furo waalidiyo waxa la kaar ma fureyno kaarka uu furan reason ma haysta haddii kaar lagu furo u baahan tahay oo rabtay dacwad waxa qabto xafiiska UNHCR aad meeshan tirkoobaay xafiiska UNHCR ayaa tagaysaa oo kaarka laga furo haddaad lagu furayo haddii kale kaar ma wala furayo tan kale waxaan rabaa arrin kale oo walaalay weydiinaya in aydan ka jawaabo ilmo ma lagu darayaa haa waana maya ilmaha lagu darayo waxay yihiin ilmihii dhalashada haystay oo ku dhalay isbitaalka dhalashada guud wado ama tii weyneed oo maxaa la dhahay isbitaalka macna UNHCR iska siinay cadeed wado haddii cadeen aa wato dhalasho cunugaaga wuxuu ku dhashay aa wado waa lagu daraa kaarka dhalashada oo saxda ah oo dhalasho dhinac laga soo meel laga soo gooyeen oo sax ah waa looga daray qofka maanta dhan waa lagu daray laakiin dad waxaa jira cid ku dhashay oo dhalashooyin haysan fadlan dadkaas waxaa u sameynaya dhalasho dowladda Kenya imaanayso oo u sameynayso registration loo sameynaa kadib dhalasho loo goynaa kaarka markaas looga daray doonaa dadka marka soo weydiinaya dhalasho ma lagu daraya dhalasho nooc lagu daray waxa waaye ninkii dhalasho haysto cunugiisa cid uu ku dhashay fadlan cunuga uu soo xambaarsanin maamooyinka cunuga isku soo xambaarin meesha dhalasho loogama daraayo ninkaas kaarkaas oo cunugiisa dhalasho haysanin laguma daraayo cunuga cid ku dhashay sifar registrar waxa la imaanay sifar registrar dawladda markay imaadaan ay ku gooyaan dhalasho ay ku gooyaan markaas kaarka lagu daray cunug
ka hore kaar laguma darayo cunug laguma darayo arinta kale rabaa inaan ka hadlayo waxay tahay systemka uu socdo tirkoobka wuxuu u socdaa block section A magi la bogo B la bogo C la bogo D ku xigta E ku xigta F ku xigta G H A11 maxaa new block K iyo J saas u socdo tirkoobka marka hadda waxa la marayaa A3 ayaa waxay gelaysaa taariikh 1 iyo taariikh 2 bishii 7 A3 ayaa gelaysa marka A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 way ku xigaan fadlan iska imaada dadka banaanka jira walaalahan waa sugnahay Soomaaliya nahay meelan ka shaqeysana banaanka jirna kaarna ku jirna fadlan imaada tirkoobkiin u imaada A4 5 6 7 8 9 10 iska soo xaadir fadlan dad waxaa jira waxaan arkay dad saaxiibadii oo aan isgaranayno oo B1 iyo B2 oo ayaga naftooda Nairobi jiro oo soo socdo inay imaadaan way la socdaan janalka la socdaan waxay dhaheen saaxiibaan soo diyaarinaa markii A10 la gaaro mise A9 limara imaanayna idhaha waayo waa sax qofkaas wuxuu u jeedaa inuu tirkoob galo dad waxaa jira hadda dadkoodii ay sugayaan tirkoobka ay leeyihiin hal qof aan maqan qofkii soo socon marka tirkoobka hadduu dhamaado oo 2 isbuuc kadib tirkoobku dhamaado lagu waayo adeeg ku taala haddii lagu waayo adeeg ku taala marka asbuuc kadib haddii lagu waayo tirkoobku dhamaado kaarkaaga waa laga xirayaa haddana kaar la xiray in la furayn ogow waxaan rabaa arrin ka hadlo dadka walaaladeena Etoobiyaanka Etoobiya ka imaaday Soomaali Etoobiga waxay dadka weydiinayeen dadka Etoobiya ka imaaday oo kaararka xiran yihiin meeshan jiraan Etoobiya maadaama aan dadka dib loo celinayo ma qaadan mana loo furayo kaarkii ninkii u saxil saaran maanta waa weydiiyey wuxuu dhahay aniga Etoobiya wax la furayo malaha kaar Etoobiya hadduu xiran yahay kaar wuu xiran yahay waxaan furayna malaha ninkii raba Etoobiya repatriation qoran kara repatriation mast ma xoog maaha ninkii repatriation qoran kara wuxuu qoranaa repatriation waa sii bixisaa haddii repatriation aan rabin waa iska joogo meesha xoog bajir xoog lagu qaada qof xoog lagu qaada malaha marka waxaan u sheegay asxaabta in kaar xiran Etoobiya ahaado Suudaan ahaado Gambela Suudaan Soomaali jir wax jir haddii kaarkaaga fadlan marba uu xiran yahay kaar laguma furaayo marka waxaan u sheegay asxaabta walaaladii in kaar la furaynin ha ogaadaan qofka uu doonayo in kaarkiis la furo oo loo furo waa inuu 3 ahaadaa ina isbitaal jiifti oo kaarka isbitaal jiifto document isbitaal cadeyn haysto waa in xirneed oo station police ku xirneed oo prison lagu geeyo prison ku jirti waa in waxbarasho ku maqneen dawladda Kenya iyo UNHCR iyo dawladaha kale hay'adaha kale ka warqabaan oo 3 oo cadeyn u hays oo document cadeynta keenis baa lagu furaya kaarkaaga haddii 3daas aad haynin waxba lagu furayo su'aalaha la isweydiinayo waa iska normal questions waxa way su'aal iska sax ah Soomaali kuma noqoni ha ama ma laga rabaa dibida dad ma ku jira oo Mareykan Ingiriiska dad ma ku jira ha ama ma laga rabaa kibaana ma leedahay ha ama ma laga rabaa laakiin inkastoo dadka kibaanaha leh kaarka kibaanaha leh bay weydiinayaan kibaana leedahay kibaanaha ma leedahay ha ama ma bis intaas bay weydiinayaan laakiin ninka kaarka kibaana ku jirin kibaana ma leedahay ma leedahay way arkay UN eega arkay in kibaana leedahay in kala way arkayaanba system ku qoran in kibaana ku qoran in kala marka waxaan arkay gabadha kibaana leh dhahday Soomaali ma aad leh ha dhahday markaas alle kibaanaha ma dhiibi Soomaali daa ujeed ma yahay kibaanaha ma dhiibi dadka Soomaali waxa ka doonay waa iska joogay Soomaali dhiibi ninka kibaana leh meel u aadin waa iska joogi marka macnaheedu waxay tahay ninka kibaana leh repatriation ma aad karo soo marro repatriation ma aad karo boofs ma aad karo ninka kibaana leh wadankiisa u nabad marka asxaabta arrinta la socdo marka tirkoobka waa iska caadi meesha iska soo mari marka kadib wax lagu faraha laga qaadaa suulka laga qaadaa hadii sawir gelin dhihi laga qaadaa warqad waxa soo siinay cadeyn in tirkoob gashay oo in waxa la oo warqad oo manifest 210 oo kale oo dhinaca oo kale nalka kale amal la siinaya kadib waa soo bixisa hadii aad haysato alin card oo aad faragoosto ku soo bixin meesha alin card dawladda fadhida diyaare alin card baarni alin card lagu fiirna alin card lagu soo baxo ku soo bixin oo ma soo bixin fara laakiin meesha lagu ma gooynaay dadka weynaha waxay rabaan fara inay goostaan dadka alin ka dhacay faraha in la goosto rabo computerkii faraha lagu saaray ayaa halaysan waa la sameeynaya marka faraha waa la gooyn doonaa fara goys waa la jir doonaa xaga dheere tirkoobka maanta ka bilowday asxaabtii inta maanta way yaraatay dadkii tirkoob shaqaalihii badan waxa loo qaaday xaga dheer tirkoobka maanta ka bilowday ayadana uu bilowday iPhone ifo ayaga naftooda waxaan rabaa inaan la hadlo dad badan comment ifo soo bixinay ifo maxaa daare 2 isbuuc kadib ayaa ifo la bilaabaya si nolol sheegay waayo meesha qaab ka socota ifo 2 isbuuc kadib ifo waa diyaar idinkiina waa la bilaabaya marka asxaabta inta la socda
ifo ayaga nafta isdejiso loo isbuuc kadib waxaan moogtay dadku waa la bilaaba shaqaalaha xag loo qoray shaqaalaha inta la kala qaaday waa la kala hagaajinaya marka UN way ka qabtaa shaqada way hagaajinaysaa ida rabto inaad shaqada ka dhamaato oo tirkoob ka dhamaado way rabtaa marka iska dulqaad ifo ayaga naftiina waa tirkoob waa marinaya wuuna bilaabanaya loo isbuuc kadib insha Allah markuu bilaabanaya inta kala socodeen insha Allah waan soo sheegi doonaa fadlan haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar like saar share garee channelka waa channelkiini waa channelkii qaxooti u shaqeynayay waa channelkeeni wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu